السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa hadal TV toddobaadkii maalmaha kamid ah laga daawataan nabadqabyo nolol tugso labaada warkiyo kooban madaxweynaha Jubaland Somaliland ayaa ku soo laabtay magaalada Hargeysa halkaas oo soo bixitay magaalada Qadar madasha wadashiga qaran dowladda federaalka iyo madaxweynaha ayaa ku kulmay magaalada Muqdisho halkaas oo qodobo la isku hayay qaran Islaamiga qaran wali dib la isku salaaman doono Puntland iyo Khaatumo ayaa dhinaca kalena waxa ku soo biiray maakhir kuwaas ay sheegeen Puntland iyo maakhir inay midoobiyaan halkay ciidamo ku soo daldarshay dhinaca gobolka Sanaag Puntland halkaas wixii warar iyo wacalka soo kordhana dib ayaan ugu socontaa wixii warar halka baad ka daawan doontaan waraaqaha aqoonsiga kaar bixinta codka federaalka lagu doonay hal qof iyo cod ayaa laga bilaabay dowladda Galmudug iyo Koonfur Galbeed dhinaca kale COVID-19 sano inaan ku xidhnaa magaalada Jabuuti oo la shidalka Somaliland ayaa dalka xiriirdiisa dib u soo laabtay magaalada Hargeysa kaasoo sheegay inuu ku faraxsan yahay xiriirdiisa dib u helay balse uu ka sheekeyn doono wixii uu ku soo arkay halkani waa hadal TV toddobaadkii maalmaha kamid ah aanaga daawataan daafaca caalamka nabadqabyo nolol waxaan idin codsanaynaa inaad maaragtay soo raacdaan oo wixii warbixin iyo wanaag baa iyo wixii dhaliil aad noo haysaanba xag hoose noo wixii fariimaa halkan waa hadal TV toddobaadkii maalmaha kamid ah laga daawataan warkii oo fidsan ku soo dhawaada madaxweynaha Jubaland Somaliland bin Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa ku soo laabtay magaalada Hargeysa halkaas uu muddo ku maqnaa dalka Qadar madaxweynaha ayaa sheegay inay soo qaateen dhinaca amniga iyo iskaashiga Somaliland iyo Qadar kuwaas oo xiriir markii hore aan lahayn haasatee la xoojinayo dowladda Somaliland ayaa dowladaha caalamka hadba ugu jirta gulcolood inay iska dhaaliciso taasoo sheegay ka helayaan ictiraaf iyo wax wada qabsi balse markii hore dowladda Somaliland ayaa xiriir lahayd dalka Imaaraadka waddanka qaar ay sheegayaan inaan Imaaraadka iyo Qadar isku wacnayn balse tartan loogu jiro Somaliland ay sheegtay tartan ugu shigto in iyadu maalgashi ka hesho daafaca caalamka iyo aqoonsi buuxda dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh iyo madasha wadashiga ayaa ku kulmay magaalada Muqdisho kuwaas oo ay isku hayeen dhinacaas doorashada noqon doonto dastuurka soo la xalinayo khilaafaadka dowlad goboleedyada iyo sidii loo magacaabi lahaa gudida ama degmada gobolka Banaadir si ay u noqoto dowlad goboleed ama halka ka soo biir lahayd xildhibaanadeeda walow aan dastuurka la ansixin madaxweynaha ayaa sheegaya in hal qof iyo cod dalku u dhaqaaqi doono taasoo wali dastuurkii iyo codkii doorashada halkii loo maray isla galeen balse waxay sheegeen inay ka wada tashadeen ammaanka iyo si loo dagaalamo al-shabaab iyo si loo heli lahaa madal loo wada dheeyahay oo isugu yimaadaan dowlad goboleedyada iyo madasha wadashiga iyo daneeyaasha raba xisbiyada si loo fur lahaa si loo kala reeb lahaa komishanka ayaan ahayn si sheegeen kuwa komishanka haatan qaban qaabinaya kuwa aan lagu kalsoonayn balse ay sameyn karaan inay si bilaabaan hanaan lagu sii meel gaaro si loo helo hadhowtole dad tayadeeda walaal qaarkood ay sheegeen in farsamo yaqaanada iyo dadkii iyagu doorashada soo galay Puntland iyo Somaliland laga helo tala bixin lana dhageysto si doorashada qabsan gaar ahaan Somaliland si kastoo haataba wali islaama maligin qodobka ugu muhiimsan oo ah doorashada hal qof iyo cod si la isla jaan qaadi karaya balse halkeebay madasha wadashigu rabtaa in lagu qabto dowladda ayaa sheegtay dhulka nabadda inay ka qaban doonto sida Khaatumo iyo dowlad goboleedyada kale nabdoon halka Puntland iyo Jubaland iyo qaadiceen si kastoo haataba wali waa arin aan laalan oo la isla maaligin kaarka cod bixinta ayaa laga qaatay Galmudug iyo Koonfur Galbeed halka markii hore gobolka Banaadir isagana laga qaatay dadka ayaa rajeynaya inay halkii hore ay cuqaashu soo dooran jirtay inay iyagu doortaan cidii codkooda ku niyeelay ay u betel doonta dowladda federaalka Soomaaliya taasoo wali waa halkii ay sheegeen aan isla margay balse dadku ay niyadooda ku sayihiin inay wax doortaan waxna diidaan dastuurka Soomaaliya ayaan isagoo wali loo codeyn balse taasi dadka qaar ayaa sheegay inay diila ku tahay bulshada Soomaaliyeed inay helaan meel ay ka wada hadli karaan iyaga bulshadu iyo ciiday doorayaan fagaarahana dadku ay yimaadaan qofku uu codkiisa dadka ku weydiisto halkaas ku soo bandhigo wuxuu qabanayo wuxuu ka bedelayo iyo wuxuu hanaanka ku soo kordhinayaba si kastoo haataba dowladaha Koonfur Galbeed ayaa iyadoo ah ugu daldarta badan haatan ee dadkeeda aadka ay kaalinta u qaateen halkii Jubaland iyagoo ka soo jeestay iyaguna ah dhinaca kale ka xiga madasha wadashiga Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo wali ismayman balse waxa la rajeynayaa soo madaxweynuhu sheegay in isku yimaadaan toddobaad soo socda ama weegaga soo socda la isla qaabili doono halkii wadatashi mugli looga la isla soo qaadi lahaa dowlad goboleedka Puntland ayaa ku eedeeyay inay fadqalala ka wadaan
dad uu sheegay inay qorayaan ciidamo halkii khaatumo iyagu ay gogol dhigeen kuwaasoo dhigeen maakhir ama gobolka sanaa qayb ka mid a ayaa puntland ka mid a haatan somaliland iyo puntland dhexdooda wax ka bisamay dowlad goboleed la yihahdo khaatumo kaasoo haatan doonaya inuu dalbalaaris ku sameeyana madal uu bulshada soomaaliyeed uu kaga dhaadhiciyo inuu dowlad goboleed gaar isu taagan yahay kaasoo u baahan waa siday dowladda federaalku sheegtay inuu helo gobolka sanaag ayaa haatan kale isku hordayayo kaasi dhinacna somaliland joogto dhinacna puntland joogto dhexdana ay ku jirta maakhir bulshada soomaaliyeed ayaa la tiicaysa dagaalo sokeeya kaasoo kale noqonaya mid haatan hor leh oo colaad soo kordhiya dadka qaar ayaa ku shaaqay in nabadda halkeeda lagu celiyo dadkuna waxay ka wada hadlayaan halkeedii loo daayo dowladda federaalkuna ay faraha kala baxdo loo daayo puntland iyo dadkii marka hore maamulayay halka iyagu dadku ay sheegeen inay xor u yihiin fikirkooda dowladda soomaaliya inay hoos tagaanna iyagu ay tahay federaalka soomaaliya ayaa loogu baaqaya inuu gacmaha kala baxo walow dadka ay sheegayaan xarimo cad inay imanayso magaalada ceelbo taasoo la rabo shirka maamul goboleedkaas inuu noqdo kalfadhigooda kooba si kastoo ahaataba dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedada puntland iyo jubbaland ayaa kasii kala fogaanaya haatan kaasoo ay ku eedeynayaan inay dowladda federaalku dabada ka riiciso dagaalo sokeeya oo ka dilaaca deegaanadooda halkani waa hadal t v toddobaadkii maalmaha ka mid a aanaga daawataan nin dhallinyaraha lagu magacaabo cabdilaahi ayaa ku xidhnaa 11 sano dalka jabuuti halkaasi dowladdii xilligii kulmiye uu hogaaminayay allah u naxariistay axmed maxamuud silaayo gacanta lagu dalka jabuuti kaasoo lagu soo geliyey arrimaha argagixiso 11 sano kadib ayuu ninkaasi madaxweynaha somaliland cabdiraxmaan cabdullaahi ceri wafdi hogaaminaya dalka jabuuti ku sugnaa bil ka hor ay weydiisteen inay u fasaxaan ninkaas odayga oo cafiyana madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar gelle ayaa ninkaas cafiyey sidii ay ahaydna usoo gudbiyey haatan uu kasoo digay 11 sano oonay hooyadii arag islaanta ayaa aad iyo aad ugu ducaysay dhammaanba cidda ka qayb qaadatay kuwaasay ahaayeen gaar ahaan dadkii xilligii uu xidhnaa u dacwoonayay walow dacwadiisii aan lagu guulaysan balse uu ku guulaysay madaxweynaha haatan jira halkani oo hadal tiifa toddobaadkii maalmaha ka mid a aanaga daawataan wararka caalamka waxaa ugu waaweyn weli alaanka iyaduna xal loo helin dagaalada bariga dhexe oo weli laga baqayo mar labaad dib u qarxo dhinaca kale etoobiya ayaa sheegtay inay iyadu heshay gaas kaasoo aan la garanayn halkay ka dhoofinayso eritrea iyo dalka eritrea iyo dalka etoobiya ayay weli alanka colaad dhex taalla kaasoo laga baqayo isagona dagaalo ay ka qarxaan dhinaca kale etoobiya ayaa lagu eedeynaya dhul suudaan leedahay inay xoog ku qaadatay kuwaasoo markii hore ay joogeen dadka tigraygu haatan ay gacanta usugalay dowladda etoobiya iyo suudaan ayaa laga baqaya iyaguna inay qarka u saaran yihiin inay isku falastaaraan walow ay cuquwaddii dalka suudaan ay liiqday taasoo dagaala sokeeye ay aafeeyeen waxaa la filaya saacadaha soo socda walow aanan warkii sugan aan ahayn in madaxweynaha dowladda federaalku ka dego waddanka masar kaasoo cilaaqaadku la yeelanaya xasiloonida gobolkana ay rabaan ay ka hadlaan halkani waa hadal tiifa toddobaadkii maalmaha ka mid a aanaga dawatan nabadqabiya nool koonte warkiina caawa intaasuu naga dhan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu